kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkan naga daawanaysan waa Stan Sports waxaan eegi doonaa kulanka caawa xiisaha iyo xamaasadda leh ee daawadayaasha kubadda cagta ay sugayaan waa kulanka u dhaxeeya kooxda Manchester United iyo kooxda Barcelona ee ka dhisan dalka Isbaanishka haddaba labadan kooxood ayaa 8 kulan kulmay horyaalka Yurub 3 kamid ah kooxda Barcelona ay guush raacday hal kamidna kooxda Manchester United 4 kamidna barbardhac ay ku dhamaatay wadarta guud ee labada kooxood ee goolashiisa kaga dhaliyeen waa 27 gool 10 kamid ah waxa dhalisay kooxda Manchester United 17 kamidna kooxda Barcelona kulankii ugu horeeyay ee horyaalka Yurub ee wada ciyaaraan waxa uu ahaa 15 May 1994 iyadoo lagu ciyaarayay garoonka Camp Nou waxaana ciyaartaas ku soo ilaatay 2-2 kulankii ugu dambeeyay ee labada kooxood ee wada ciyaaraan horyaalka Yurub wuxuu ahaa finalkii 2011 ka dhacay garoonka Wembley ee kooxda Barcelona ay ku qaaday koobka taas oo ku soo ilaatay 3-1 haddaba daawade haddaad ka mid tahay daawadayaasha kubadda cagta ciyaartan maxaad ku saadaalan lahayd fikirkaaga halkaas inoogu reeb waxaan kaloo eegi doonaa daawadayaasha ku sugan magaalada Hargeysa ciyaartan sidee u saadaaliyeen magacaygu waa Sakira Farxaan Faarax Carab waxaan ahay taageero weyn oo Manchester United oo waqti badan soo taageerayay haddaan saadaalin ka bixiyo kulanka ay wada ciyaarayaan Barcelona arbacada soo socota insha Allah taala ee Champions League waxaan isleeyahay naadiga Manchester United inkastoo ay maalmahan dambe guul darooyin la kulantay Barcelona ee guuleed si wadato waxaan isleeyahay wax walba isbedel baa ku iman kara xagga ciyaarta marka anoo naadiga ku korsan Manchester insha Allah waxaan rajaynayaa guul weyn inaan ka gaarno Barcelona oo 2-1 insha Allah saasaan rajaynaya insha Allah in Manchester 2-1 ku guuleysan doonto magacayga waxa la Ibrahim Cilmi Dugsiye Manchester iyo Barcelona Messi على طول أحسن لاعب ولعبه كل فليابا هذه أفضل صحة ما واننا أنا تاجر إلى الله بكرة استحدي وعفرتي أتبال تاجره بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا حمزة محمد علي كل ما قاعد حمزة سحرديد أنا كم حكى فرقين عيارة الشيء مانشستر يونايتد يا برشلونة أبدأ عيارتها كهالو كم كروح على عيار يا كرون كمانشستر يونايتد محلية هيدا كوحدة مانشستر يونايتد ولا قاعد بدي ما دام معي كوحدة برشلونة قاعد بدي أنا مسني بقولك بس عشان كوحدة برشلونة بدي دوت وحكوا بدنا نسأل بيه بركوا بدنا نسأل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد يا عبد السلام عبد الرحمن مانشستر يا برشلونة وحنون إن شاء الله أي والعيار دوران هبيت دمبي مركز إن شاء الله إن مانشستر بين دونتو صدق يبر إن شاء الله إن يكونوا فندونا كوحدة مانشستر سنة كان دردر أيام نكرمنا دردر تباريس أكلات تو كدرنا أكله إن شاء الله قول بس صدق يبر نكونوا فندونا. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد يا عبد الشكور خالد إسماعيل oo kooxda Barcelona taageera waxaan isleeyahay labada kooxood inaan isku awoodayn oo kooxda Barcelona ay ku badan doonto 2-1 insha Allah lugta koowaad أنا magacaygu yahay Said Ali Maxamed Cabdi أنا horta mushkilad baa jirta labadeeda kooxood baa isku dhacay Barcelona lama taageera Manchester lama taageera laakiin dad waxay ku kalifisay inaan Barcelona raaco maadaama ay awood u tahay ay koox ka hortimaadaba iska celin karayso marka waxaan rajaynayaa in ciyaartaasi 4 gool ku dhamaanayso Messi laba dhalinayo labada gool دمبلي كلا دلينيان كونتينيو بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد بلاويا إن مقعد وأبدر هذا صادلي عيارته إن مانشستر يونايتد يا برشلونة أنا إن تاجرة إن برشلونة يا عيارته صارت كوحدة نلا عيارته نلا ود ما يا إن كوحدة برشا كوح آدي ودوين يا مركز تشامبيونز ليج لهذا يا waxaan ku saadaalanayaa Manchester United horta inaan kawaal mar doono kuna hor 3 year ku qoran dambana 2-1